السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأمرك لي يا أبشر حسن اشتفتم شيكدي waxaa noo socotay wiilkii Soomaaliga ahaa iyo gabadhii Jarmalka ahayd. Gabadhii markay wiilkii uu u sheego in uusan wadanka sharci ku haysanin in xogaa hadda muddo joogo 9-meeyadiina wadanka Jarmalka sharci lagama bixin jirin. teeda kale luqadda uusan si fiican u aqoon oo uusan awood u helin in uu luqadda si fiican u barto familkiisii iyo wadankiisina dagaal ka socdaan oo familkiisii xataa caawimaad uga baahan yihiin uusan awood u helin shaqo fiican uusan haysanin waxyaalo badan adigu dhibaatooyin badan uu yarka iska haysto yarkii markaa gabadhii waxay leedahay okay wiilkan xoogaa integration buu u baahan yahay waxay leedahay markaa asxaab badan bay iyadu leedahay oo rag iyo dumar ba isugu jira marka waxay ku leedahay waqti samaraa lagu jiray waxaan ka casumay maxaa la yiraahdaa barbecue maal dhahaa ama grill ee dhahan Jarmalku baan ka casumaya oo weekendiga aan qabanayo aniga iyo dhalinyaro kale asxaabteeda nagala soo qayb gal adreeskii bay siinaysaa meeshii uu wiilka imaanaya dhalinyaradii bay isbaranayaan dhalinyaradii dumar iyo rag ba isugu jiraan wiil Turkiyo iyada waliba gabadhan ay ilaa iyo caruurnimadii iskuul ahaayeen baa ku jira dhalinyarada kale muddo badan bay is yaqaanaan dhalinyaradii buu baranayaa adigu maxaa la wada wareysanayaa waxaa la leeyahay iskuul baan ku soo raadinaynaa iskuul lacag la'aana wiil kale oo maxaa la dhahaa macalinka ah iskuul Volkshochschule la yiraahdo luqadaha laga barto oo dadka waaweyn ah wiilkiiba maxaa la dhahaa wuxuu leeyahay anoo ku caawinaya luqadan ka caawinaya inaad baratid adigu dhalinyaradii buu wiilku ku xirmaya luqadiina waqti yar buu ku baranayaa oo nin very intelligent ah waa luqadii uu baranayaa iskuul waxaa la geenayaa dadka waaweyn oo shahaadooyinka iskuulada sare laga soo qaato si uu maxaa la dhahaa shahaadana u helo oo haddii ausbildung samayn kara ama wax baran karona looga caawiyo adigu dhalinyaradii wiilkii way isla qabsanayaan maxaa la yiraahdaa dhalinyarada marka waxaa ka mid ah gabar aad u qurux badan oo gabdhahan timaha cadla ah oo la yiraahdo haddana dhanka maxaa la yiraahdaa ragguna aad bay maaragtay u eegaan gabdhahana xoogaa waxaa lagu xantaa inaysan ahayn gabdho maaragtay garaadkooda ku socday ay yihiin gabdho oo xoogaa waa lagu xantaa xan weeye adigu kale calaa kulli xaal gabadhu waa gabar laftirkeedu xoogaa dhibaatooyin midha famil ay soo qabsadeen kadibna dhibaatooyin kale ay qabsadeen laakiin hadda waxay aad saaxiib u yihiin gabadhan ay wiilkan marka hore soo barteen waa dad asxaab isku dheer ah sidii gabar walaasheedoo kale way ilaalisaa gabadhaana ilaaliso oo maarkin oo maxaa la dhahaa waxay noqdeen dad aad asxaab isugu dhow ah waayo khaladaadkeeda badan gabadhan timaha cadle adigu muddo ka bacdi gabadhan oo ay wiilka isbarteen ayadu ma aha reero disco iyo baarti iyo waxyaalo saasa dhalinyarada ay asxaabta yihiin markay meelaha tagtagaan madaxa unbay tustaa ka bacdi xoogaa yar bay la soo joogtaa ma cabto waxba way isaga soo tagtaa wiilka Soomaaliga asagana sidoo kale laakiin wuu yimaadaa muddo kadib markaa oo mar walbaba meelaha lagu kulmo ayagu gooni uma kulmaan laakiin mar walbaba meelaha asxaabta ku kulmaysa iyo baa lagu kulmaa teeda kale maxaa la dhahaa farayno oo waxay ka wada asagana laga qayb galiyay oo waxaa la wada ciyaaraa maxaa la yiraahdaa basketballka iyo waxyaalo saas ay ciyaaraan marmarka qaarkood bowling wax la dhahaa la isugu yimaado waa iska dhalinyaro adigu hawlo noocaas ah baa la isugu yimaada meelahaas la isku arkaa gabadhan marka waxay isleedahay waxay arkaysaa wiilkan inuu dhalinyarada kale ka duwan yahay uu ka akhlaaq duwan yahay ka maxaa la yiraahdaa ii sheeg ahayn nin balwadeed ahayn nin maaragtay dumar badan iyo waxyaalo saas iyo qof dantiisa kaliya raacda bas marka gabadhii waxay ku fakaraysaa adigu waxa iska jira wax oo instinct ah oo dareen iska hoosade ah oo
ay gabadhuna qabto ay arkaysa asaguna inuu iyada u qabo maxaa la dhahaa marka waxay ku fakaraysaa mana degdegayso waa qof very intelligent ayada laftirkeeda qof ma aha maxaa la dhahaa degdeg badan waxay ka fakaraysaa dareenka keliya mehe maxaa la dhahaa maskaxdeeda inay ku shaqeyso marka waxay isleedahay wiilkan caawi dee wuxuu yahay mataqaanid laakiin wiil wanaagsan buu kula egyahay caawi si uu ku helo sharci uu waddanka ku joogo dhalinyarada asxaabteeda marka kalama hadlayso oo uma sheegayso laakiin waxay rabtaa in ay qaab sharciya oo waddanka dee maxaa la dhahaa meesha laysku guursado inay warqad uga soo samayso ay tirahdo waan isqabnaa aniga wiilkan ayada guri 3 qowlo oo ma waxay degan tahay habaysan oo kale iska arag inay qowlad tirahdo qowladaa deg de waxaan iska dhigaynaa dad isqaba si aad sharcigaaga ku heshid muddo yar gudaheed ka bacdina ama aad wax ku baratid ama aad shaqo ku heshid adu waxyaala saasay ka fikiraysaa laakiin uma sheegin asxaabteeda asagay marka kala hadlaysaa sorry wiilkii ayay la ballamaysaa gabadhii meel kafee ah maalinta dambe arrintii bay usoo bandhigaysaa waxay ku leedahay saasaan damacsanahay see u aragtaa asigu wuxuu leeyahay wallaahi waa mahadsan tahay waa arrin fiican waana kaaga mahad celinayaa adigu maalmadan kadib baa waxaa dhacaysa gabadhii ayadoo weli arrintii ka fakaraysa oo haddana dareenkeeda uusan weli caadi ahayn oo isdhahaysa ama degdegtay ama adigu laakiin wiilkiina arrintii ku tiri oo meelay ka noqoto lahayn baa waxaa dhacaysa gabadhii ay asxaabta ahaayeen oo timaha caddayd baa soo wacaysa maalmo ka bacdi oo ooyeysa oo walaalay wallaahi dhibaata ay haysata naa maxaa kugu dhacay oo adigu way ballamayaan shaqada ka bacdi isugu kaaya keenbeeleda gurigayga shaqadii ka bacdi bay u imaanaysaa tiyo dee ay aada uga jajaban tahay oo gaduudatay ama balaaw ama blue noqotay oo aada murugaysan marka way wareysanaysaa maxaa dhacay oo xaggee yacni dhibku ka jiraa gabadhii waxay u sheegaysaa inay uur leedahay way yaabaysaa tii waxay leedahay okay see wax u jiraan xaggee wax ka dhaceen yuu yahay ma aqaanaa adigu su-aalo badan bay weydiinaysaa waxay u sheegaysaa markaa in uu yahay wiilka Soomaaliga ah gabadhii yaaba ilaa u keenay waxay leedahay muwaalan tahay marka gabadhan de waa dad saaxiibo ah oo aada isugu fiican way ogeyd oo maxaa la dhahaa way u sheegi jirtay gabadhan marka hore wiilka soo baratay Soomaaliga u sheegi jirtay inay wiilkan yani dhaqankiisa iyo ka hesho oo uu wiil fiican ula eg yahay oo ay xana xoogaa danaynayso marka taa waxay ku beertay dee shock waxay ku tiri sidee ku dhici kartaa oo maxaad ku keentay arrintaa oo